waxaa laga wada warqabaa oo hore dadweynuhu u ogaa inaanu cabasho u geynay isimada oo hadda si xoogan u jooga magaala madaxda dowlad goboleedka Puntland Garowe cabashadaasuna ay ku salaysnayd xubnihii ansixinta golaha wakiilada oo aan cabasho ka soo jeedinay isimadii waad ka warhaysaan muddo arrinta ku jireen go'aankoodii ugu horeeyeen shalay soo saareen isagoo qoran saxaafadda madax bannaana waa loo gudbiyey annagana saakay noo yeereen si ay si rasmi ah noogu soo jeediyaan iyo wixii talooyin oo kale oo ay door bideen inay na maqashiiyaan oo ku wajahan arrimihii annagoo aan u soo jeedina ka codsanay ku saabsan iyo talo guud oo ay noo soo jeediyeen oo nabadgelyada iyo go'aankoodii shalay ay soo saareen wixii aanu ka qabno iyo aqbalka iyagii intaasay noo soo jeedisheen waxaan inii sheegaynaa inaanu aqbalay qoraalkii ay soo jeediyeen shalay oo ay go'aankoodii ku salaysnaa inaanu aqbalay oo aanu ku kalsoonnahay oo arrintaa awood u siinayo dastuurku isimada Puntland qodobka 79aad oo oranaya sida tan wixii muran iyo ismaandhaaf ah waxaa loola noqonayaa isimada si ay talo uga soo jeediyaan ama ay go'aan uga gaaraan qodob waa beelo waxa isku khilaafsanay magacaabida xubnaha haddii khilaaf yimaado mar haddii beelo ay yihiin waxa isku khilaafsanina waxa awood u leh khilaafkaas inay saaraan oo wadaday u marayaanba ama xubnaha golaha ha magacaabeen iyagu marjaca ha noqdeen sidii marka ay ka badin waayaan u maareeyaan go'aan qaynuunku yahay sidaasaan anoo ku qanacsannahay sidaasaan go'aankooda ugu kalsoonaanay ay tahay arrimaha amniga annagu waxaanu waafaqsannahay sidii ay u soo jeediyeen waxaanuna u soo jeedinay isimada in kol hadday yiraahdeen annaga maamulayna aqbalay sidaas waxaan kaloo aqbalay u soo jeedinay ciidamada dhexdhexaadka oo imaanaya in saldhig looga dhigo ciidamada loo yaqaano BSU Puntland Security Unit oo aan ogahay inay tababaran yihiin kana kooban yihiin gobolada oo dhan iyo maamul goboleedka Puntland deegaamadiisa ka kooban yihiin diyaar baan u nahay anoo marjac waxaan u noqonaynaa wixii nabad iyo nabadgeliyo iyo sulux iyo wuxuu inay wanaag ku dhamaadaan oo wada wanaagsan lagu kala baxo oo aan waji gabax iyo is-eedaynuusan jirin iyo kala dhimasho asaan ku gowracanahay intaasana ku soo dhamaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wakaas go'aanka iyo golaha